haddaad xafladda mawlidka nebiga ku diidan tihiin nebi moxamed sidaan uma samaynin de jaamaca qur'aankana xagga iska dhiga waxaa ka sii daran axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee bukhaari u sarreeyo ee saxiixulbukhaari ku xigo ee sunankii arbacadaha ku xigaan ee macaajimtii iyo masaaniiddii leh ee diinta islaamka dhan xambaarsan nebi moxamed ma ogeyn calayhi salaatu wasalaam walal khulafaa uraashiduun ma ogeyn afarta khulafaa uraashidiinna ma ogeyn ayagana ha laga tagay bannaanka ha loo tuuro macnaha qofka xafladda mawlidka nebigu ma ogeyne waa baadile ha la joojiya dhahayaahu waxa ku xig uu ku leeyahay waa bukhaari iyo muslim ha la iska tuuro nebigu ma ogeyne xataa saxaabadoo dhan ma ogeyn ninka jamciyey axaadiista nebiga jamciyey waa xilli dambe xilligii umawiyiinta la jamciyey xilligii umawiyiinta yaa la jamciyey axaadiista nebiga weliba nebigu waa diidey laa taktubuu canii hayra alqur'aan uu yidhi xadiidka nebiga in la qoro nebigu waa nahiyey waxaan qur-aanka ahayn ha iga qorinina ayuu nebigu ku wafaaday calayhi salaatu wasalaam ma ogolayn in la qoro iyadoo nebigu uu diidayo in qur'aanka iyo xadiidku ay isdhex galaan maxaa yeelay marka nebigu wuxuu ogaa in diinkan dad u soo baxayaan wax kasta oo diinka islaamku uu ku wanaagsanaanayo hadda xadiidka nebiga in la qoraa maxay tahay hadda waa waajib waa in xadiidka nebiga la qoro in la qoro qur'aanka waa waajib nebiguna ma ogeyn labadaba nebigu ma ogeyn labadaba waana shay waajib oo haddaan la qorin diinta islaamka indiraasaysa camalkan markaad aad rabtid inaad sharciga islaamka saartid camalkaanu nebigu wuxuu nahiyey ilaahay nahiyey miyuu ka mid yahay mase kama mid aha haddii nahyigaas caamka ama nahyi khaasa ku soo arooray ee xadiidka nebiga ee qur'aankii ilaahay soo dejiyey amar khaasa nahyi khaasa hadduu ku soo aroorayna xagga iska dhig nahyi caama hadduu ku soo aroorayna xagga iska dhig labadaasa waxay yihiin waxyaabaha la iska reebay waxaan nahyi caamana ku soo aroorin nahyi khaasana ku soo aroorin dhinaca kale fiiriya amar caama ma ku hoos jiraan amar khaasase ma ku hoos jiraan ee qur'aanka iyo sunnada ku soo arooray hadday ku hoos jiraan amarkaasu hadduu waajib keenaayo waajib waaye amarkaasu hadduu keenaayo sunno waaye amarkaasu hadduu ibaaxo keenaayo ibaaxo waaye xafladda mawlidka nebiga loo samaynayo waxaa la dhihi karaa xilligan waajibayba noqotay sababtoo ah jacaylka nebigoo dadka lagu abuuraya xafladda nebigu xambaarsan tahay sideedaba waxaa aad u dhibay xilligaas bishaa mawlid dadku waxay ka qaataan oo ka cabaan jacaylka nebigay ka cabaan aad markii maxabada nebiga ay u qaataan maxaa ka dhalanaya maxabada nebiga itibaaca nebiga ka dhalanaya waxaa dadka laga hortaagaya waxaa waaye diinta islaamka inay dadku qaataan waxay noqotay saamaynta ugu badan oo dadku diinta islaamka ay ku qaadanayaan saamaynta ugu badan oo dadku nebiga itibaaciisa ku qaadanayaan waa xafladda mawlidka nebiga ay ku dhex jirtaa intaasaa marka dadku ka duulayaan oo ay diidan yihiin ee dhab ahaan markii aad fiirisid waxa ay la ordayaan oo ay adilo ka dhiganayaan waa wax eber ah oo haahu ah waxa ugu weyn waxa waaye nebigu xafladdahan oo saana nebigu ma samayn dhab ahaan nebigu wuu sameeyey macno kale ma laha waa shukri oo ilaahay looga shukrinayo dhalashadii nebiga looga shukrinaya dhalashadaas nebiga looga shukriyana nebigaa looga dayanaya soomkii uu nebigu maalinka isniintaas soomaa looga dayanaya nebigu soomkii uu soomay oo dadka uu amray in yowmu caashuuraa la soomo shukri ilaahay looga shukrinayo reer bani israa'iil nicmadii la siiyey yuu nebigu noo amray inaan soomno waxaan isku boorinaynaa oon isku dardaarmaynaa inaan nebiga dhalashadiisa weynayno xafladda mawlidka nebiga aan weynayno waxa ugu yar waa jacaylkaas oo laga helayaahu waxa ugu weyn oo lagu gaaro maxabada nebigana waa in nebiga maciyadiisa aad heshid